Netanyahu iyo Afgaland dhowr jeer bay Israa'iil isku dayday in maxkamadda dambiyada dagaalka ay kala noqoto eedeynta iyaga lagu eedeynayo iyo doonista la doonayay in la soo xiro maxkamadda inay ka noqoto laakiin isbuucana ugu dambeysay ICC way diiday ra'iisul wasaaraha dalka Canada Mark Carney maanta ayaynu ka hadalnay barnaamijka aroonimo ayuu ku jiraa wuxuu dhahay haddii Netanyahu uu yimaado Canada in la xirayo waxa uu sheegay in loo dhiibayo maxkamadda dambiyada dagaalka ICC loo gudbinayo haddii gudaha dalka Canada hawada uu soo mara meel walba taas oo muujinaysa saameynta culayska ay ku hayso intuu dagaalka Gaza socday qaar ka tirsan militariga Israa'iil oo booqday qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Latin America ayaa ku sigtay in la xiro shakhsiyaadkaas ayaa si dirqi ah ku baxsaday marka waxay ku tusaysaa maxkamadda xitaa haddaysan awood lahayn inay saameyn ku yeelan karto oo ay walwal ku abuurayso shakhsiyaadkaas isku soo duub dukumiintiyadan ayaa lagu waramayaa in ay noqdeen kuwa aad looga hadalayo gudaha Israa'iil caawa ilaa iyo galabta tan inta ay shaacisay Al Jazeera gudaha Israa'iil caraweyn ayaa ka dhalisay maamulka Netanyahu marka waxay keeni kartaa in askartii ay ogaadaan in accountability ay jirto in la isla xisaabtamayo in la isdaba socdo in la record gareynayo oo la qorayo oo la diyaariyo dambiyada iyo qaladyada ay galayaan iyo xasuuqa ka dhacaya meel walba oo ay dambiyada ka galeen gaar ahaan Gaza waaya saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy maanta waxaa loo taxaabay xabsi ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska caasimadiisa Nicolas Sarkozy waxa lagu eedeeyay ama uu ku eedeysnaa muddo maxkamadna ay la daba taagneyd sida haddaba ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ay maxkamad u daba taagan tahay gudaha Israa'iil ayay isna muddo maxkamad u daba taagneyd maxaa lagu weystay ninkan Sarkozy horta doorashadii 2007 ka dhacday Faransiiska waxa la sheegay in musuqmaasuq aad u weyn uu sameeyay waliba dawladda shisheeye oo lacag ka soo qaatay gaar ahaan dalka Liibiya madaxweynihii xilligaas Muammar al-Qaddafi ayaa waxa la sheegay in uu lacag xoog leh ka qaatay uu maal galiyay doorashadiisa wixii la daba socdaba Sarkozy waxa la ogaaday sirtii iyo qorshihiisii lacagtii uu ka qaatay Qaddafi iyo ballanqaadkii ahayd in cadaadiska reer Yurub ay ku hayeen Qaddafi iyo dhibaatadii lagu hayay Qaddafi wuxuu isku dayay xilligaas Mareykan iyo reer Yurub inuu qanciyo oo qorshe hub nuclear eedeyn lagu eedeyn jiray wixii oo dhan albaabada u furay si uu wax walba uga tanaasulo awoodiisa military ka tanaasulay Sarkozy dadkii qaybta ka ahaa ayuu ka mid ahaa ee cadaadinayay ee markaa riixayay ee kala shaqeynayay qorshahaas wuxuuna u ballan qaaday isagii Talyaaniga xilligaas Faransiiska ee Talyaaniga inay caawinayaan Muammar al-Qaddafi laakiin France waxay qayb ka noqotay kacdoonkii Qaddafi lagu burburiyay ee maamulkiisii lagu soo afjaray 42 sano kadib ugu dambeyn Qaddafi lagu dilay waxay saacad isgurtaba dacwadii Sarkozy eedeyntii ku aadanayd in uu doorashadii 2007 lacag uu ka qaatay Qaddafi uu gudaha France soo galiyay kadibna doorashadii sida uu qayb ay uga noqotay ayaa banaanka timi ugu dambeyn maxaa dhacay markii fadeexadii waxay socotaba maxkamadii maalin isgurtaba waxa lagu xukumay Sarkozy 5 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay maanta ayayna noqotay maalintii gurigiisa laga kaxeynayay loona wada xabsi ku yaala isla magaalada Paris ee dalka Faransiiska halkaas wuxuu ku soo qaadan doonaa 5 sano ayuu ku soo dhamaysan doonaa hadda waa nin weyn oo da' oo waayeel ah 5 sano markuu xabsi ku dhamaystana koo horta sumcadii madaxweynenimadii meesha ku baabaaday oo nin xabsi galay ayuu noqonayaa dambiilo noqday khiyaanola qarankiisa khiyaanay ayuu noqonayaa adduunku waxa ogaanaysaa madaxweyne noqo ra'iisul wasaare noqo xilka doonta qabo Netanyahu isagoo kursi ku fadhiya la daba socdaa ilaa hadda labadii isbuuc marba maxkamad la keenaa waxay ku tusaysaa qiimaha ay leedahay isla xisaabtanka si kasta Israa'iil iyo reer galbeed iyo wadamada kale ugu wanaagsanayn ama loogu eedeeyay inay gacan bidixayaan iyaga gudahooda way ilaashadaan kama kaftamaan si iyaga u kala badbaadaan cidii musuqmaasuq iyo dal shisheey inay ku lug lahaat laga dareemo Netanyahu maxaa lagu haystaa inuu Dooxa ama Qatar dawladda Qatar inuu lacag ka soo qaato Sarkozy 5 sano waxa galiyay hadda qubarada dadka arrimaha kiiska Netanyahu aad uga faalooday marka fiirisa waxay leeyihiin waxay u badan tahay in Netanyahu xabsi ku dhamaysan doono noloshiisa
waayo kiiska lagu haysto waa kiisas waaweyn sida ay maxkamadiisa u soo noqonaysa ayaana laga dareemayaa waana sababta Netanyahu mar walba uu xaalad u abuurayo mar uu Falastiin ku duulo mar uu Suuriya ku duulo mar uu Lubnaan ku duulo mar uu Yemen madaxa la galo mar uu Ciraaq u hanjabo mar uu Iiraan la dagaalo ma fariisanayo waa qaabka kaliya la leeyahay uu ku badbaadi karayo ويا صاحب هذا قيمة لو قيبها مركين ماشي وقبحنا وحين وصل صعد لبقى قضب أو حيسله مدحوينها ذلك مريكن كيان يدين صوّدا قضب يابل وكذا واجي دولة بريقة حكوية لو عربة أيولية ديار وحويين حماس إن لدى قرطان وهذا حريري دونتان وحين سوى قارن قيبي وجود بيه برنامج كان في دنماء وهبين ما 4 يسوق ليسو أينو كوب لونه إن مدحوينها ذلك مريكن كدونالد ترامب أي شيء in ay jiraan dawlado Carabeed oo ku yaala bariga dhexe oo isaga shakhsi ugu ballan qaaday hadii uu ka codsado inay ka dagaalamaan gudaha Gaza isla markaasna ay meesha ka saaraan Hamas inay diyaar u yihiin inay dagaalamaan oo amarka Donald Trump ay ku shaqeeyaan wuxuu yiri dawladahaas waan u mahadcelinayaa waxa cajiib dawladahaas magacooda ma sheegin laakiin waxay dadka arrimahan aad uga faalooda tilmaamayaan inay jiraan dawlado si gaar ah ugu xiran Donald Trump oo ay kamid tahay Imaaraadka iyo kuwa kale oo qowlaysata arrimahan aad ugu dhow marka wuxuu leeyahay dawladahan ciidankoodu waa heegan waa diyaar waxa si cajiib ah Imaaraadka iyo kuwa kale la mid ah Jordan iyo waxa la mid ah gaar ahaan Imaaraadka ciidamada ay isticmaalaan ciidamo Imaaraadka ma baahan baa la leeyahay calooshii shaqaystayaal caalamka ka kala yimid ay qortaan sida hadda Suudaan waxay ku hayaan oo kale meeshaas ay xaalad ka abuuraan laakiin waxa leeyahay Imaaraadka inta ay la egtahay iyo xaaladaha ay isku furayso iyo dhibaatooyin iyada aan shaqo ku leeyna ka fog deegaankeedii dalkeeda ay isku soo jiidaysaa saan haday ku socotana waxay qabsanaysaa baa leeyahay dariiqa Israa'iil kaligeed iskuma filno reer galbeedka gaar ahaan Mareykan iyo reer Yurub ayaa mar walba garab siiyo laakiin Imaaraadka ma helaysaa baa la leeyahay culays weyn hadii soo wajaho taageerada reer galbeedka dabcan Ukraine ayaa weysay NATO isku haleynaysa marka waxa la cadow aan shaqo ku lahayn iyo xiisad aan u muuqanin ay Imaaraadku u muuqataa inay isku soo jeedinayso oo ay isdhex gelinayso laakiin Donald Trump ma sheegin dalalkaas wuxuu si yaab leh u sheegay sida Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay qorayaan in uu haysto ballanqaad rasmi ah oo dawladaha bariga dhexe qaar kamid ah ay ballanqaadka isaga si toos ah u siiyeen waayahay walalaha qiimiga leh waxaynu ku soo afjaraynaa barnaamijka JD Vance madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ayaa hadda booqasho waxa uu ku joogaa bariga dhexe gaar ahaan Israa'iil intuu halka joogay wuxuu la kulmay Netanyahu iyo qaybo badan oo ka tirsan maamulka Netanyahu baarlamaanka Israa'iil ka saad iyo kuwa kale waxa cajiib ah in maanta hadal aan la filaynin uu ku hadlay wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa shirka Sharm el-Sheikh in heshiiskaasi wajiga kuwaad sida u hirgalay كلابادنا لو هيرجل وحول شاقين وسرجين إن دقال كين دب لوغو نغضو وحمرك على تاقن أولو جوغو جارد كوشنا أو مارتين نينكا قبل دونالد ترامب أريما بارغة دي حقيب كاها هشيز كحماس إسرائيل سو كلا ستيف ويتكوف إرجي غاركا وهذا يساق شاقين دوانين وشخدا كفر يسانيو جايدي مركا وحول شاقين إن ما أركتي أنا لوبا هنين عيدا مريكن وليه إن لكينو wuxuu sheegay in uu rajaynayo heshiiskiinu si wanaagsan ku dhawaado wuxuu dhahay hadda waxaanu halkan ka diyaarinay waa in wuxuu ka wadaa Gaza iyo Israa'iil goob xuduud ayuu leeyahay xarun military ayaanu ka diyaarinaynaa maxaa meeshaas ugu sameeynaa marka hadalka rajada muujinay waa kan wuxuu leeyahay dib u dhis ayaa lagu sameyn doonaa Gaza taas oo qayb ka ah heshiiska walina waxa socda dhinaca kale Israa'iil iyo Hamas in meydadkii ay isku soo gudbiyaan إسرائيل ما أنت شن يتمن ميت أو فلسطينيين أي سوق قد بسي سي أي ذكر هاي فلسطين وأستان حماس نقار كم إذا ذكر إسرائيل لقاها إذا ميدات كود أي قيب قد بسي يلا شيء قيبها كلنا إنه يقد بين دونان هناك واحد شيء نسونا كسر على الله هذا أي سنة قنين وين أمريكا برين حب جوجين تلا تلبامي كرو إنه الله هذا دعدي وحير قصدي بالله لسيدونا إن واحد وصول ويعد والبقيب كانوا خنيس إسرائيل dhinaca kale waxay isku dayday Turkiga iyo Qatar inay qayb ka noqonin kaalmada iyo gargaarka ee dhaqaaqa Gaza ka socdo laakiin Turkiga wuxuu ku adkaystay in uu u diro hay'ado iyo ururo iyo qaar kamid ah militariga dalka Turkiga gaar ahaan
kuwooda gargaarka degdega iyo bani aadamnimada iyadoo la arkay sidaanu barnaamijka saaka sheegnayba kaalmada Turkiga oo Gaza laga qaybinayo in ciidamada Turkiga qaybo kamida oo raadinaya dhismayaashii burburay cagaf